kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiin baa khiyaarta hawada nagala socotay ku soo dhawaada warbixin kooban oo aanu ku fiirinayno ma waxa jira wada hadal u dhaxeeya dawladda federaalka ah ee dalka Itoobiya iyo maamulka kooxda TPLF ee indhowaalaba dagaalka ba'ani u dhaxeeyay iyadoo oo dagaalka u dhaxeeya ciidanka militariga dalka Itoobiya iyo ciidanka maamulka kooxda TPLF uu marayo marxalad aad u adag dhinaca kalena soo baxay habeennimadii xalay ahayd war sheegaya in dawladda federaalka ah ee dalka Itoobiya ee uu hogaamiyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo maamulka kooxda TPLF uu wada hadal uga furmayo magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda warkani ayaa waxa qoray qaar kamid ah warbaahinta kala duwan ee caalamiga ah gaar ahaan wakaaladda wararka AFP qaybteeda afka Carabiga iyo waliba wakaalada kale kuwaasi oo sheegay in dawladda Uganda ay dhexdhexaadinayso maamulka kooxda TPLF iyo maamulka Addis Ababa si looga baaqsado sii socoshada dagaal dhiig badan ku daata oo dhexmara labada dhinac kadib warkaasi markii uu soo baxay si weyn baraha bulshada loogu baahiyay ayaa waxaa si kooban uga hadlay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya oo isagu sheegay in ay gaari doonaan hadafka iyo waliba ujeedadii ay u bilaabeen dagaalka ka socda gobolkaasi Tigray waxaana uu sheegay marnaba in aan la hakin doonin howlgallada military ee ka dhanka ah hoggaanka sare ee kooxda TPLF iyo ciidankooda kuwaasi oo uu ku eedeeyay in ay ku xadgudbeen sareynta dastuurka iyo hanaanka sharci ee dalkaasi Itoobiya waxaana ra'iisul wasaare Abiy Ahmed loo arkay in hadalkaasi uu uga jawaabayo warkii ay qoreen wakaaladaha wararka kala duwan ee caalamiga ah kuwaasi oo iyagu sheegay in wada hadal uu u bilaabanayo labada dhinac haddaba iyada oo warkaasi ka soo baxay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiyana uu jiro ayaa dhinaca kale waxa magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda gelinkii hore ee maanta gaaray wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Itoobiya ahna wasiirka arrimaha dibadda mudane Damaqe Mukonin Xasan kaasi oo kulan la yeeshay madaxweynaha dalka Uganda mudane Yoweri Museveni iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan xukuumadda uu garwadeenka u yahay Yoweri Museveni kulanka labada dhinac ku dhexmaray magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda si rasmi ah looma shaacinin waxa ay uga wada hadleen waxaase la fahansan yahay in arrimaha ugu muhiimsan ee kulankaasi looga hadlay ay tahay dagaalka ka holcaya gudaha dalka Itoobiya gaar ahaan gobolka waqooyi ee Tigray kaasi oo dhiig badan uu ku daatay lagana cabsi qabo haatan in uu galo marxalad qalafsan oo khasaare badan oo isugu jira naf iyo maalba in uu galaafto wafdigaasi uu hogaaminayay wasiirka arrimaha dibadda dalka Itoobiya Damaqe Mukonin ayaa kulanka ay la yeesheen mas'uuliyiinta dalkaasi Uganda kadib waxa ay u socdaaleen amaba ay u kicitimeen dhinaca magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya halkaasi oo iyadana la filayo in ay kulamo kula yeeshaan cawaysinimada caawa mas'uuliyiinta dalkaasi Kenya iyo waliba mas'uuliyiin kale oo ka socda beesha caalamka fadhigooduna yahay magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya su'aasha isweydiinta mudan ayaa waxa ay tahay hadiiba aanu jirin wada hadal u dhaxeeya maamulka kooxda TPLF iyo maamulka Addis Ababa maxaa keenay xilligan in wafdiga uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda Itoobiya in uu booqdo magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda sidoo kalena uu booqdo magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya bal hadda aynu yar fiirino dhinaca diblomaasiyadda ee sida aynu wada ogsoonahay tan iyo intii dagaalku uu ka bilowday gobolka Tigray ciidamada militariga ee dalka Itoobiyana amar lagu siiyay in ay dib ugu soo celiyaan kala dambeyntii iyo nidaamkii dawliga ahaa deegaanka Tigray ayaa waxa jiray dhawaaqyo isa soo taraya oo ka soo yeedhayay beesha caalamka iyo sidoo kale kooxda TPLF ee iyadu maamulka deegaanka Tigray gacanta ku haysa mas'uuliyiin kala duwan oo ay ka mid yihiin kuwa qaramada midoobay kuwa Mareykanka midowga Yurub iyo waliba qaar ka mid ah dalalka Afrika iyo sidoo kale midowga Afrika ayaa dhamaantoodba waxa ay ugu baaqeen dawladda federaalka ah ee dalka Itoobiya in ay joojiso dagaalka ay ku qaaday maamulka Tigray waxaana ay ugu baaqeen in arrinta ama khilaafka labada dhinac miiska dushiisa
dhisayo taasi oo gebi ahaanba ay ku gacan saydhay xukuumadda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed waxaana ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo isagu afkiisa ula baxay hogaaminta kala duwan ee beesha caalamka ee qayladhaantu ay ka soo yeedhaysay ayaa waxa uu ku dooday in dagaalka ka socda dalka Itoobiya gudihiisa aanay ahayn mid u taala beesha caalamka iyo waliba dawladaha saaxiibka kuwaasi oo ka dalbaday in ay ixtiraamaan qarannimada iyo haybadda dhuleed ee dalka Itoobiya waxaana uu sheegay marnaba in aanay aqbalaynin xukuumaddiisu inay arrimaha gudaha dalka Itoobiya kala tashato dawladaha shisheeye dhinaca kale kooxda TPLF oo diidmada ra'iisul wasaare Abiy Ahmed u aragtay fursad siyaasadeed ayaa waxa ay dirtay baaqiyo isdaba jooga iyo qayladhaan ay u dirtay beesha caalamka iyo waliba urur goboleedyada kala duwan ee ay ka mid yihiin ururka midowga Afrika urur goboleedka IGAD qaramada midoobay iyo midowga Yurub kuwaasi oo dhammaanba ay ka dalbatay in ay joojiyaan dagaalka lagu soo qaaday deegaanka Tigreega iyada oo sidoo kalena ka dalbatay in la diyaariyo miis wada xaajood oo ay ku wada hadlaan labada dhinac si looga baaqsado dagaal dhiig badan ku daata oo dhexmara dawlad deegaaneedka Tigreega iyo dawladda federaalka ah ee dalka Itoobiya arrintaasi waxa cadaadis xoog leh ay saartay xukuumadda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyada oo cadaadiskaasi jirana sidoo kale waxa dagaalka si rasmi ah ugu soo biiray maamulka dalkaasi Eritrea oo la sheegay in ay qabsadeen qaybo ka mid ah deegaanka Tigreega waxaana arrintu ay cirka isku sii shareertay kadib markii ay maamulka kooxda TPLF sawaariikh la beegsadeen magaalada Asmara ee caasimadda dalka Eritrea iyaga oo sheegay in ay uga jawaabayaan sawaariikhdaasi weerarkii ay ciidanka dalka Eritrea ku soo qaadeen deegaamada dhaca xuduudda maamulka Tigreega halkaasi oo ay kula wareegeen degmooyin ay ka mid tahay magaalada Baadhame iyo waliba deegaamo kale iyada oo walaacaasi jiro ayaa sidoo kale waxa soo baxay war sheegaya in qaar ka mid ah dawladaha Carbeed ee saaxiibka la ah dalalka Itoobiya iyo Eritrea in ay ka qayb qaadanayaan dagaalka ka dhanka ah kooxda TPLF waxaana la sheegay in diyaaradaha droniska loo yaqaano ee dalka Imaaraadka Carabtu ay maalmihii la soo dhaafay duqeymo ka geysteen meelo ka mid ah deegaanka Tigreega taasi oo xaaladda cirka ku sii shareertay waxaana mar kale muuqday in dagaalka u dhaxeeya dawladda federaalka ah ee dalka Itoobiya iyo waliba maamulka Tigreega uu isu bedelay dagaal heer gobol ah arrintaasina waxa walaac xoog leh ka muujiyay qaar ka mid ah dalalka deriska la ah dalka Itoobiya iyo sidoo kale beesha caalamka iyo waliba dalal saaxiib gaar ah la ah dalkaasi Itoobiya oo ay ka mid yihiin dalalka Turkiga iyo Iran oo wax ka weydiiyay dawladda Itoobiya ku lug lahaanshaha Imaaraadka Carabta ee dagaalka ka socda gobolka Tigreega arrintaasina waxa ku baraarugay dawladda federaalka ah ee dalka Itoobiya taasi oo si degdeg ah u dirtay wafdiga uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi Itoobiya Damaqe Mokonin Xasan kaasi oo loogu diray dalalka Uganda iyo waliba dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi in uu u gudbiyo beesha caalamka iyo dalalka deriska xaqiiqada dagaalka ka socda gobolka waqooyi ee dalkaasi Itoobiya waa deegaanka Tigreega sida ay sheegayaan amaba ay ku waramayaan ila diblomaasiyadeed wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya Damaqe Mokonin waxa uu u sheegay dawladda dalkaasi Uganda in dagaalka ka socda gobolka Tigreega aanay jirin dawlad shisheeye oo ku lug leh waxaana uu sidoo kale cadeeyay in dawladda Itoobiya ay ku filan tahay soo afjaridda kooxda TPLF sida ay ku doodeen ilaha diblomaasi ee xogtani nala wadaagay sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya Damaqe Mokonin ayaa cawaysinimadan caawa ah waxa kulamo uu la yeeshay mas'uuliyiin ka socota dawladda dalka Kenya iyo waliba mas'uuliyiin kale oo ka socda beesha caalamka kuwaasi oo iyaga naftirkooda uu u gudbiyay in dagaalka ka socda deegaanka Tigreega uu yahay mid ku kooban gudaha dalka Itoobiya sidoo kalena aanay jirin dawladda banaanka ka imaanaysa oo iyadu garab siinaysa dawladda federaalka ah ee dalka Itoobiya waxaana uu sheegay in ay dawladda Itoobiya ku filan tahay xallinta khilaafaadka iyada gudaheeda ka jira marka laga yimaado sheegashada iyo waliba ku adkaysiga wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Itoobiya Damaqe Mokonin uu ku adkaysanayo in aanay jirin dawlad shisheeye oo ku lug leh dagaalka ka socda gobolka Tigreega ayaa dhinaca kalena kooxda Tigreegu waxa ay ku doodayaan iyaga oo waliba cadaymo soo bandhigaya in dawladda Eritrea iyo waliba dalka Imaaraadka Carabtu ay si toos ah ugu lug leeyihiin weerarada isdaba jooga ah ee kaga imaanaya labada dhinac waa dhinaca dalka Eritrea iyo dhinaca dalka Itoobiya
siday dooniba ha noqotay xaaladda guud ee dagaalada ka socda dalkaasi Itoobiya gaar ahaan deegaanka Tigreega ayaa waxay u muuqdaan inay galeen marxalado hor leh oo isu bedeli karta dagaal ay ka qayb qaataan dalal shisheeye iyada oo aynu ogsoonahay in haatan dalka Suudaan uu walaac xoog leh ka muujinayo dagaalka ka socda gobolka Tigreega si waxa ay dawladda dalkaasi Suudaan ee ku meel gaarka ah ay u sheegtay in hogaamiyayaasha sare ee kooxda TPLF ay u furayso xuduudeeda markastana ay soo dhaweynayso taasi oo muujinaysa in dagaalka ka socda gobolka Tigreega uu noqday dagaal ay ku hardamayaan dalal shisheeye mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan kooxda TPLF ayaa horay waxa ay u sheegeen in haddii dawladda dalka Itoobiya ay joojin weydo garabsiga ay garabsanayso dalalka shisheeye gaar ahaan dalka Eritrea in iyaduna dhankeeda ay samaysan doonto xulafo dagaalka ka kaalmaysa waxaana muuqata haatan in qorshaha diblomaasiyadeed ee kooxda TPLF horay ay u dejisay ay haatan noqotay xukuumadda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed taasi oo iyadu iska indhatirtay dhammaan baaqyadii caalamiga ahaa ee ka imaanayay dalalka kala duwan ee saaxiibka la ah dalkaasi Itoobiya iyo ururada goboleed ee ay ka mid yihiin ururka midowga Afrika urur goboleedka IGAD iyo sidoo kale midowga Yurub iyo waliba qaramada midoobay iyo dawladaha reer galbeedka oo kali ugu baaqay dalka Itoobiya hoggaankiisu in ay joojiyaan dagaalka waxaana muuqata haatan in xiisadii dagaalka xiisad kale oo ka xasaasisan oo dhinaca diblomaasiyadda ahi ay soo ifbaxday taasi oo ay suuragal tahay in Itoobiya ay ku weydo saaxiibo badan oo ay horay u lahayd balse wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya ayaa dadaal xoog leh oo ka daba tuura waxa muuqata in ay ugu jirto sidii ay beesha caalamka iyo saaxiibada Itoobiyaba uga dhaadhicin lahayd nooca uu yahay dagaalka ka socda gobolkaasi Tigreega iyo waliba dawladaha ku hardamaya iyada oo dhinaca kalena kooxda TPLF oo adeegsanaysa diblomaasiyad xeel dheer mar walba ay ku doodayso in dagaalka ka dhanka ay qayb ka yihiin dalalka Eritrea iyo Imaaraadka Carabta kuwaasi oo si rasmi ah dagaalka ugu jira waxaana arrintaasi ay walaac iyo shaki xoog la gelisay qaar ka mid ah saaxiibada dalka Itoobiya gaar ahaan dalalka Turkiga iyo Iran oo iyagu xasaasiyad ka qaba dalkaasi Imaaraadka Carabta si kastaba ha ahaatee ma jirto ilaa iyo haatan xog rasmi ah oo cadeynaysa iyo waliba ila diblomaasiyadeed oo soo gudbiyay in uu jiro wada hadal u dhaxeeya kooxda TPLF iyo maamulka Addis Ababa sidaas daraadeed waxaan meesha ka saaraynaa amaba waxba kama jiraan aan ka soo qaadaynaa warkii ay baahiyeen qaar ka mid ah wakaaladaha wararka caalamiga ah ee ay ku sheegeen in uu jiro dadaal ay wado dawladda Uganda oo la isku soo horfadhiisinayo maamulada Maqale iyo Addis Ababa kuwaasi oo ilaa iyo haatan labada dhinac midkoodna una soo hadal qaadin isku soo xooriya waxa muuqata haatan labada dhinac waa Addis Ababa iyo Maqale in uu u bilowday dagaal diblomaasiyadeed oo mid waliba ay doonayso mid kale in ay ka kasbato saaxiibada Itoobiya haddii Allah awood leeyahay ogolaadana wixii ka soo kordha